guddiga difaaca Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ee magaalada Garowe ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah kuwaas oo ku saabsan dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim dawladda Puntland waxay marar badan cadaysay kuna celcelisay in Somaliland iyo al-shabaab ay leeyihiin xiriir dhow iskuna milmeen oo ayna hadda si wada jir ah uga howlgalaan buralada galgala. dawladda Puntland waxaa duulaan lagu soo qaaday 2 Juun 2018 taliskeeda ciidanka badda ee Balliqadar ee Puntland ee ku yaal buralada galgala. duulaankaas ayaa waxaa hogaaminayay sarkaal ka tirsanaa guutada sideedaad. haddaba 7 Juun 2018 mas'uul maamulka Somaliland oo hadlay oo la yiraahdo Engineer Faisal Cali Waraabe wuxuu cadeeyay inuusan jirin wax la yiraahdo shabaab iyo Daesh, wuxuuna ku daray al-shabaabkii ay laayeen ciidamada Puntland inay ahaayeen ciidamo kale oo isagu ogaa magacyo kalena uu ugu yeeray. isagoo ku sii daray mas'uulkaasi oo hadlay Somaliland in la laayo dhammaan ardayda reer Puntland ee wax ka barata jaamacadda Amuud ama Somaliland oo dhanba. haddaba dawladda Puntland waxay u sheegaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dawladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in hadalka mas'uulkaas uu yahay cadayntii ugu dambeysay ee ay Puntland ku cadaynayso in Somaliland iyo al-shabaab isku mid noqdeen ayna Puntland dagaal kula jirto isbahaysi ballaaran oo duulaan ku ah amniga mandiqada oo dhan. sidoo kale waxay dawladda Puntland u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in xubin ka tirsan al-shabaab oo loo soo diray inay isku qarxiso shacabka Puntland oo ay ciidamadu ka hor istaageen falkaasi arxandarrada ah uu ugu dambeyntii isku qarxiyay dalka Suuriya sanadkii 2017. baaritaan kadib dawladda Puntland waxay ogaatay in xubintaas argagixisada ah oo la oran jiray Sayid Xuseen Faisal Cali Waraabe uu dhalay mas'uulka 7 Juun cadeeyay in al-shabaab wax la yiraahdo aysan Puntland ka hoggaan ee ay yihiin ciidankaasi ciidan uu isagu si gaar ah u og yahay oo fuliya siyaasadda xasuuqa iyo isqarxinta ku salaysan ee uu ka wado Somaliland dalka Soomaaliya oo dhan. ugu dambeyntii dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan dawladaha la dagaalama argagixisada iyo hay'adaha dabagalka dambiyada caalamiga ah inay furaan baaritaano caalami ah oo lagula soconayo dhaqdhaqaaqyada argagixiso ee Somaliland ka wado Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale. afhayeenka xukuumadda Puntland ahna wasiir dawlaha xiriirka golayaasha wasiirada Puntland Maxamed Cabdullaahi Quraanjecel ayaa isaguna fariin u diray ardayda Puntland ee wax ka barta Somaliland iyo waliba maamulada jaamacadaha Somaliland ee ardaydana wax ka bartaan. dawladda Somaliland wuxuu sheegay in la laayo ardayda ku dhaqan jaamacadaha wax ka barata Somaliland. ardadaas tiro koob guud oo aan sameynay waxay gaarayaan tiro 900 ah. 514 waxay joogaan Boorame, 310 waxay joogaan Hargeysa. waxaan ardada u sheegaynaa inay ku soo noqdaan guryahoodii. waxaan ka codsanaynaa jaamacadaha ay wax ka dhigtaan inay u soo wareejiyaan semesteradoodii si sharaf leh baan uga codsanaynaa si ay iyagoo dad qaba guryahooda wax ugu bartaan. waxaan kaloo u sheegaynaa shacabka Puntland ee qurbaha ka imaan jiray iyo shacabka gudaha ku jira intaba inay soo food saartay khatar ah in maamulka Somaliland ku dhawaaqay la laynayo shacabka Puntland. waxaan u sheegaynaa dadkii ka soo dhoofi jiray dibadda soo mari jiray Hargeysa inay ka soo degaan garoomadooda haddii ay ku kaliftana ay soo maraan Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan kaloo rabnaa guddi ahaan inaan la hadalno shacabka Laascaano. shacabkaas waxaan u sheegaynaa Puntland waxay galaysaa kuna jirtay dagaal la yiraahdo Xarbul Karaama, dagaalkii sharafta. sharaftiinii ayaa wax la yeelay, sharaftii sool ayaa wax la yeelay in mas'uuliyiin Somaliland ay leeyihiin awooyaashood soo wareysta. waxaan soo gudnimo ah ma qaadan doono. waxaa la rabaa inaad u istaagtaan xoreynta dalkiina. waxaa la rabaa mudaharaad la yiraahdo mudaharaadkii karaamada ee sharafta dadkeena iyo dalkeena inaad qabataan. waxaan u sheegaynaa dhalinyarada iyo waayeelka jooga
meesha la yiraahdo Laascaano maanta ma aha maalintii aan dhowran lahayn in isir iyo ab iyo dal iyo diin balina ka bedelo Ahmad Sham Home Cable TV Garow